Lahore ayaa bilaabay qorshe halis ku ah dagaalka ka dhanka Daesh ee Puntland ay ku jirto isaga oo la shaqaynta kooxda Daesh ku farmuuqay ama ku eedeeyay rag waaweyn oo mas'uuliyiin ah oo xildhibaano wasiiro gudoomiyaal degmo iyo kuwa gobol ay ku jiraan haddaba raggii uu Lahore eedeeyay qaar kamid oo durba su'aasha sanka laga galiyay iyo iyagii oo jawaab cad bixiyay ayaan saaxiibayaal idin soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa kamid ah daawo doontaan hadii Allah awood leh ogolaado shirkadda Goolis oo kamid ah shirkadaha isgaarsiineed ee ka aasaasan ama ka shaqeysa deegaanada Puntland waxa ay ka jawaabtay xogta sheekada waxa ka jira inay nin ka tirsan Daesh u furtay lambar iyadoo shirkadu maxay ka tiri arintaas xogaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaan soo gudbi doonaa oo aad ku daawo doontaan reer miigi oo iyana dagaalka toos ugu biiray iyo odayaashii ku sugnaa tuulooyinka fog ee miiga ah oo diyaar u ah inay dagaalka galaan codad iyo xogo ku saabsan arintaas ayaan sidoo kale idin ku soo gudbi doonaa qodobada iyo kuwa kale ayaa daawo doontaa balse ugu horeyntii daawada sidee ayaad u aragtaa qorshaha Lahore la yimid ee ah inuu iska hor keeno shacabkii Puntland ee safka hore ee dagaalka taagnaa isaga oo farmuuqay rag waaweyn oo xildhibaano ku jiraan isla markaana leh raggan aniga aqaana Daesh ayna wada shaqayn la leeyihiin dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari muxuu ka yiri eedii loo jeediyay ee ahayd in uu wada shaqayn la leeyahay kooxdaas aragtida qaybta hoose ee faalada ku reeb ee ku aadan arintan muuqaalka la saaro meel fogaarsi halkana ku soo biir si aad u hesho xogaha degdega ah ee joogta aynu u soo gudbino waagaag saaxiibayaal waxaan ku bilaabaynaa nin sida aan ognahay waxa dhawaan gacanta laamaha amniga ee Puntland ku soo dhacay nin weyn oo dhagarqaba ahaa isla markaana kamid ahaa raggii ugu magac weynaa kooxda Daesh Soomaaliya wuxuuna ninkaasi abaabulay qorshayaal badan oo lagu dilay dad hal door iyo wanaag ku dhaxlaha deegaanada Puntland sidoo kale ninkan ayaan ognahay inuu xitaa mar isku dayay inuu qorshe dil u maleego madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane laakiin qorshahaas ayaa fashilmay ugu dambeyntiina markii uu adkeyso waayay risaasta iyo holaca furimaha dagaalka yaala ayuu isu soo dhiibay ninkan haddana gacanta laamaha ammaanku ku jira maxaa soo kordha marka sida aan shalay idin tabinay ninkan waraysiga laga qaaday يعني waraysigiisa ayaa la filayaa in dhawaan la qaado isla markaana diyaarintiisa qorshihiisa ayaa socda laakiin xogo hordhaca oo laamaha ammaanka ay weydiiyeen ayuu ninkan wuxuu ku farmuuqay dad waaweyn oo xildhibaano gudoomiyaal degmo kuwa gobol leh kuwaas oo uu leeyahay kooxda Daesh ay xiriir toos la leeyihiin ninkan ayaa ragga uu farmuuqay waxa kamid ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari ee Puntland kaasi oo uu ku tilmaamay inuu xiriir toos la leeyahay waa Maxamed Dalmar Bile ayuu Lahore sheegay inuu xiriir la leeyahay kooxda Daesh saxaafadii oo maanta jaanis ku heshay ayaa su'aashaas weydiisay oo yiri gudoomiye in Daesh xiriir la leedahay ayaa lagu eedeeyay arintaas maxaad uga jawaabaysaa haddaba jawaabtii uu bixiyay aan isla daawan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile eedeynta Facebook lagu jeediyay inaad xiriir ama siyaabo sida doonta ahaatee aad nimankaasi waxay ma jiraan xeer nooga dhaxin kara xiriir dagaal baba naga dhaxeeyo cadaawad ma garanaysaa ninkaas bara bulshada waxa ku arkana waxa weeye maxaan ku raaxay sawirkeeda la soo qaato la yiri gudiga taakuleenta ku jira gudiga taakuleenta anu kama mid yahay gudoomiyaha gobolka kamid ah anu ku-xigeenkiisa baan ahay gudigana kamid ma ahay labadaynu ma wada gali karo hal gudi ma garanaysaa aniga gudoomiyuhu wax xiriir aan la leeyahan karana ma jira xabad iyo cadaawad baa naga dhaxaysan nimanka hadalkaasna waa hadal meel waaye baan oran karaa ma garanaysaa waa iska bara bulshada ma garanaysaa waliba qof aan waxa ahayn ma garanaysaa isla ayadaysan sawir wixiisu la shaqeeyo nimanka inuu yahay baan aaminsanahay ama aan miyir qabin ma garanaysaa leeguma tuumin karo geerna xishiisa ka gaada xaasha kullillaah ilaahay uma qaban nimankaasna cadaawada naga dhaxaysa Puntland iyaga ka dhaxaysa baan anigu hormuud ahay ma garanaysaa dadka hormuudka kamid ahay karo waxaas isaga jawaabihiisa waa helaya laakiin ma rabo inaan la xafiiltamo oo u jawaabo isaga warkaas war xun oo waaweey mana jiro mar labaad mar saddexaad waxa bogaadinay ciidamada geesiyaasha ee Puntland oo naftooda dhiigooda u horay ma garanaysaa difaaca dalkooda dadkooda iyo dadweynaha reer Puntland oo kala harin oo la daba jooga ma garanaysaa hiil iyo hoob ciidankooda oo u heelan farxadeedoodana laga helayo meel walba ma garanaysaa meesha lagu arko soo qabanayo cid kasta oo la shaqeynaysa ma garanaysaa sharciga la horkeeni doono dadweynuhu ka baxsan dadka oo u soo guntaday ma garanaysaa si isaga u dabar jari lahaayeen maxaan ku raaxay argixisada arrintaasna dhamaad bay ku dhowdahay gobolkoodu waa dhacay waa burbureen كله واركتا قدومي كحجينكي وقبل كبري واسبري يلي أرنتاسنا وحوشاجة إنه سشقل إيه شقة كلهين أنا قوم حقيقة كرنو
sababtoo ah urku baarlamanihi laakiin arintan daawade ma u muuqataa in la hor uu qorshe u degayo sidii uu Daacish culayska uga dulqaadi lahaa isagana hor keeni lahaa shacabka Puntland maadaama hadii arintan dadka qaar rumaysan ay leeyihiin hadiiba kaas Daacish yahay aan wax laga qaadeen dagaalka waxaan ugu jirnaa waa qalad arintan dhagar ma u muuqataa la hor u maleegay ragga safka hore ee dagaalka taagan mise sheekadu waa jirtaa aragtidaada reeb sidee ayaad u aragtaa qaybta hoose ee faalada aragtidaada ku dhiib dhinaca kale saaxiibayaal shirkadda Goolis ayaa soo saartay qoraalkan waxayna iska biri yeelaysaa inay nin Daacish u furtay yani simikaar dhawaan waxa aad u wareegayay xog ku saabsan in kooxda Daacish ay toos ugu furtay yani simkaar nin ay ogtahay inuu Daacish yahay iyadoo markii dambe markii la fahmana magac ku dartay oo wax ka bedeshay magacii ay markii hore ugu sameysay haddaba shirkadda oo soo saartay qoraalkan ayaa tiri kadib xaqiijin dheeriya shirkadda Goolis waxay cadeynaysaa in macmiilka lambarkiisa warbaahinta la dhigay 43 eber 892 uu yahay qof shakhsi ah oo kamid ah macaamiisha Goolis magaciisa oo saddexna uu yahay Kunnin Waaniye Cabdi magaciisa oo afarna uu yahay Kunnin Waaniye Cabdi Cusmaan isla markaana aysan jirin wax dhibaato ah oo u muuqda shirkadda macaamilkiisana xaq ayuu u leeyahay cid kastana waxa waajib ku ah in xuquuqdiisa qof ahaaneed la dhowro sidoo kale shirkaddu waxay hadalkeeda ku soo gabagabeysay shirkaddu waxay u adeegtaa bulshooyinka deegaano kala duwan oo waa bulshooyin ka soo jeeda deegaano kala duwan oo ku kala duwan magac bixinta waxayna si xilkasnimo leh u dhowrtaa xuquuqda macaamiisheeda iyo sidoo kale hab raacyadeeda shaqo oo shuruucda dalka waafaqsana marka shirkadda Goolis waa iska bariyeeshay arintan inkastoo la leeyahay arimo kalena way fududeysay anaga soo ma xaqiijin karna laakiin shirkaddii waa iska bariyeeshay ninkii Kunnin Waaniye ay ugu qorneed waxa la leeyahay waa muwaadin shirkadda Goolis sidaas ay tiri ninkaasna wax tuhuna anaga kuma ogin taasu waa taas waxaan ku soo gunaanadeynaa saaxiibayaal reer miigi ayaa iyana toos ugu biira dagaalka nin kamid ah dadka reer Puntland ee dhulka miiga ah ku nool ayaa isaga oo faru yaqaanisanaya waxa uu soo istaagay markasta waxaan diyaar u nahay inaan difaacana dalkeena isagoo Daacish si aan hore loo arag u weeraray codkiisan ku soo gabagabeynayna laakiin daawade aragtiyahaaga dhiibo warkan ka soo baxay shirkadda Goolis muxuu ka dhigan yahay dhinaca kalena in la hor uu farmuuqayo mas'uuliyiin waaweyn oo uu leeyahay Daacish ay xiriir la leeyihiin maxay ka dhigan tahay aragtida qaybta hoose faalada ku dhiibo muuqaalka la igsaaro saaxiibada gaarsii halkana ku soo biir si aad u hesho xogaha degdega inagu waynu ka adkaanay ciidamadeena geesiyaasha ay waxay ugu dhaadhaceen godadka waxay ugu galeen meel kasta waxa ay tahay in laga allabariyo maadaama caalamkoo dhan ina fiirinayo allabari baa ina ku waajibay